السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa anigii macalin Saciida barnaamijkii aad nooga barateen inagoo waliba ay naga maqan tahay mataanteeni insha Allah biidnillah karim next week nala soo gali doonto Aamina Cabdiqaadir isbedel doon channel laakiin waxaan la joog dhinacayga fadhiya what's your channel wanaag jecel iyo waxa isla joogan mastering power within waxaan nooga barateen topigeeni ahaa self love so haddaba last time introduction ka sameeyay self love wuxuu ku saabsanaa sidoo qofka ibn aadanka naftiisa ku jeclaada laakiin maanta waxaan aad u sii gali doonaa deeply waxa ogahay message-yada noo soo dirteen fariimaha soo gaaray feedback-ana siiseen waxa soo dhan waa wax maaragtay aad iyo aad noogu muhiim ah oo ay even tusinaya meelaha la doonayo in laga jawaabo so maanta waxaan wada gali doonaa jacaylka nafta iyo nafta xakameynteeda Soomaali Saciid ku soo dhaw aad iyo aad baan soo dhaweynayaa daawanayaasha daawanayo soo dhawaada maanta aad farxad waxa ii ah inay ila joogto mataantaydii Safi Faarax Bande oo aad u faraxsanahay inay noo timid maanta aan ka wada hadlayno insha Allah anagoo isla wada joogno self love iyo jacaylka nafta صح ما شاء الله تبارك الله and okay su-aashayda before aanan topica sii gelin adiga ayaan ku weydiinaya waxaa laga yaabaa hadda right now in maskaxdaada ay ku jirto ay ka dhex qeylinayso waa maxay self love kan ay ka hadlaya miyaa qof jira naftiisa aan jeclayn sax يعني إنه قفك كده ور self love يعني هذا ور برس هذا self love وحكوا ليه قفك واحد يعكس إنه كده self love بقف نفتي سنعب بيا جرته so هذا وقت إنك وحن إلاوني قفك نفتي سنعب إنه جرين أوك أيا وحكوا دعاء نفتي سون حكمين كرين لكن هذا النفط هذا كل جعلات وحيالها أي كل بتوتو وأديك كل بتدو هذا ودي healthy لبسو جارسية so that means متى تقف self love كون طبق أنا هذا أودنه سيدا قفك ابن آدم كنفتيسه وكجعلان كرا محيس يكون كل دوينهن قفك لها نفتي ذو جعل I love myself ولكن نفتيسه حكمين كلمة هو كانك أقول رأي محي قفك ابن آدم كوسول جيتو qofka ama naftiisa jecel horta hore waxa lagu gartaa inuu naftiisa ka celin karo waxyaabaha tahlukada u soo jiidayo exactly ama carada ilaahay uu sababayo صح naftaada hadaad jeceshahay uma ogolaanaysid inay yani wax xun ay daawato ama ay meel xun u socoto ay lagu yani u qaado tilaabo ama ay xataa wax xun ku fikirto ama ay dad xun ay la dhex joogto that's right so taasoo kale hadda مثلا waxaad arkaysaa qof ibn aadan kule yani naftiisi waxaan ka hadlayn anaga maanta aan aad iyo aad u sii gali doono tobigana I'm telling you ma topic ku dhamaan kara one subject one maaragta aan idin soo fariisano aan ka soo hadalno iyo twice iyo three times waa topic aan ugu talagalnay insha Allah biidnillah karim inuu 6 week isku jiro uu socon doono still ma buuxin doono self love wax uu yahay waayo jacaylka qofka naftiisa uu qabo waa inuu waxay ka mid tahay inuu kala jeclaado waxyaalaha xumaa ah mesela waxa idin ka siinayaa indhuhu waxay arkaan waxyaalo badan dhaguhu waxbay maqlaan in badan gacmaha waxyaalo badan ayay aadaan ficil waxa jiro oo aan qaadno ka waran haddii aan ku taaganahay boo aan dharka aan xiranayno iyo aan iska yani marna inaad dadka hortooda ku ceeboobno waxyaalo badan ka waran haddaan nafteeni aan bahdilno su-aasha waxay ka mid tahay sideen nafteena ku bahdilnaa so taasoo aniga aan kusoo noqon doono jawaabteeda macalin Saciida maxaa ka dhihi lahayd dadka ka waran habeenkii oo dhan kusoo jeeda oo indhahoodii ay maaragtay habeen iyo maalinba iska badbaabo qofka ibn aadanka inuu kusoo laakiin way kusoo jeedaan wax ayaga naftooda aan qusaynin oo naftoodii ku mashquuliya dad kale noloshoodii iyo waxaa dhici karta dadkaas noloshoodii inay tahay nolol ay xakameeyeen ama ay noqoto nolol aysan xakameyn laakiin inay sirdoon ay xan raadiyaan aada so dadkaasi miyay jecel yihiin naftooda lama aha inay jecel yihiin naftooda waayo hadday jecel yihiin naftooda mayna u horseedi lahayn waxyaabo oo hadhow macnaha iyaga murugo xataa ku abuuri karo oo shalaytan kaga imaan karto yes taas waxaa ka mid ah maanta waad aragteen social media ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo siiyey inaan ka faa'iidaysano wax badan ayaa kaga faa'iidi kartaa waxaad ku gaari kartaa jaamacadda ayaad ku baran kartaa jaamacadda diintaad kaga soo bixi kartaa jaamacadda maadigaad uga soo bixi kartaa maanta waad aragtaan yani dunida inay u badato wax walba in online lagu sameeyo ka waran qofka ibn aadankii oo yani oo islaaba oo yani iskama aaminsan inuu naftiisa jecel yahay oo dheh مثلا kasoo qaadba dadka hadda dhahay naftoodi markaad tiraadid nafta ma jeceshay wax kule aniga nafteeda waa jecel qof naftiisa nacmaya jirta ka waran haddii dadkaas ay ku mashquulsan waxyaalaha ugu daran aan idin sheegayo aan really and I'm sorry ina yani somehow and reality ga taabanay but the truth is the truth
okay it's not only you is anaga xataa for us mar dhow yani waxaan bilawnay inaan dib u noqono dhahno waa maxay waxyaalaha nafteena aan ka xakamayno dan waxaan ogaanay in nafteena aan kala jeclaanay maayo qof maanta dad bas raacdid dhar wasaq kuma raaci kartid oo yani wasaq ah adigoonan wejigaadi dhaqnayn dharka ah xirantaadi ilaashan waayo maxaad ilaalinaysaa waxaad ilaalinaysaa sumcadaadi iyo imagekaagi ayaad ilaalinaysaa oo dadka siday kuu arki lahaayeen ka waran gudahaaga adiga wixii banaanka kaaga imaanaya waayo adduunka gudaha iyo banaanka iyo wixii banaankaaga imaanaya every time uu gudahaaga soo galo ka waran haddii aadan naftaadii u yeelin maamulo xakameeya waayo dowlad kasta maamulo ayay leedahay waxay leedahay secretary sax maamulaha naftu ma samaysato maamulo laakiin naftu maamulaha loo tusiyo ayaa hogaamiya se yaa u sameeya hogaaminta maamulaha waa shaqsiga مثلا هذا كسو قاد وين قرآنك وكلا ما شاء الله سيدا نفتح كو حكم اسمك قرآنك برنيس توبر بدينا يعني كو علعلس بدن إيو صح ما شاء الله إلهي ومعناها كو قريبة أون محين هذا ما شاء الله كو دقائق ديد إنا قرآنك كو علعلسيد أدبرتك صح مركا ها ونفتح هذا خير لجعشة أي رحتة exactly كورن لبضا ساعة قرآنك برن لحيد ونفتاada aad aakhiran ugu kordhin lahayd adduunkana uga badbaadi lahayd ka waran haddaad musalsal 1 2 3 aad ka tuurtid hadhowdii saacadaa ku dhaaftay 2 saac ku dhaaftay markii dib waxaa noqonaysaa qof naftiisii maamulo aysan u yeelan maxaase ka wadaa maamulaha aan safiya sheegaysa waa su-aal muhiima maamulaha waa qofka ibni aadanka ah waayo ilaahay subxaana wa tacaala jismigu ku siiyey caqligu ku siiyey wuxuu ku siiyey garasho waxtu gartid wuxuu ku tusiyay adduun wata sha'nigiisa ishuugiisa dhibkiisa adduun wata wax walba waxaa lagugu dhex daray ibni aadan adiga kaa dhex baxsan aragti gaara leh go-aan gaara leh wax walba yacni leh ibni aadankaas marka sideen ula dhiilgareynaa haddaana nafti waayo qofka kale ibni aadanka naf ayuu wataa adiguna naf ayaad wadataa labadii naf haddaysan lahayn hogaamin ku kala leexiyo way isku dhacayaan hadduu fiirso dowladaha maxaa ka dhaca government way isku dhacaan because wax inay leeyihiin dastuur u dhisan so qofka aniga waxaa aaminsanahay ba asa safiya ah shaqsiga naftiisa ma jecla hadduusan samaysan firia hadduusan samaysan maamulo naftiisa oo u samaysan oo ka xakameeya waxyaalaha ugu fura easyga daaqada ah oo ka daawado waxyaalahaas oo kale hadda maxaa ka mid ah maalan ahaan haddaa nala sheergaraysid macan saciida مثلا dadka hadda ka war musalsalada aan ka hadlayay dadkaas oo kale sidee naftooda yani sidee ku bahdilaan waqtigoodii ku dhumiyaan number 1 هذه waqtiga intii ka faa'iideysan lahaayeen wax wanaag naftooda u soo kordhi lahaayeen ee waxa laga yaabaa in ay intii daawanayaan ku daalaan wax badan qaban karin hadhowti negative badan maskaxda uga maxay ahaydeen waxaas ay daawanayaan إلا وح reality معها موقتين. Exactly. So هذا صدق وحكى كده بعد جسي. إنه يكون دالان وقت يكلمه. هذا نتبقوا فيه إنه دالكس يكون دالين. محو قدرين يهي. نفطة. عافماتك. قرشة. وايو هذا نفط هذا جعش هاي واتكلم جعلاني سائن آذن ساعد هذا يكاغلو من ميل قلدن. إن جركاغي وسن كدالين ميل قلدن. inaadan quudan xan oo dhagahaada aadan ku raadsanin waayo qof ibni aadanna dhihi karo subxaan allah way yartahay aan waxaana ilaahay subxaana wa tacaala aan ka mangalay oo aan allah ugu mahadiyo in aanan jeclayn qof ibni aadan inta waco aanan xan ka dhagaysto ama aan kula hadlo alxamdulilah waayo xanta waa waxyaalaha qofka ibni aadanka tusiyo inuusan xadadsanayn xadad dhanba lahayn حدودي مكبحين exactly يا الله سبحانه وتعالى قرآنك منه شيء آية القرآن كأدو معلم بدنا نفسر ولا تجهر آية حنت ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى فيري محقودا بسي وأنتم لا تعلمون وايو حنتو سبحان الله وحيال بدن قرآنك الله إن بدن وكشاك بأنيقا waxaan idinla hortaaganaha ani macna saciida think waxaad isfiirisaa oo aad iskoorsiisaa oo aad dhahdaa intee in laeg ayaa nafteyda xakameeya maxaan ka xakameeya maamulo ma u yeela nafteyda iga soo celiya inaan waqtiga beel dareenin in aan maaragtay waxa aniga maskaxdeyda aan ka quudin karo oon quudin karo aan siiyo
in aan xariga u hayo sida ilmaha yarka ah orda kufa loo ilaaliyo waalidku u ilaaliyo ma u ilaaliyaa se ma aaminsan tahay inay naftaada adiga horta kaa baxsan tahayba iyada ku wadi karto ina nafs la amaarad nafta iyadaa ku wado iyadaa ku hogaamin karto waxay kugu furi kartaa daaqad subxaan allah oo hadday indhahaagu hadday sii bilicsan ay ku gelayso naarta ku mutanaysid daaqad waxay kuu furi karaan businesskaaga kaaga qaribmo daaqad waxay kuu furi karaan dad ibni aadana inaad isku dirtid daaqad waxay kuu furi karaan dhegaysi aad qof kale dhegaysata xantiisii yani ajirkii aad samaysan lahayd oo aakhiradaad aad ku tegi lahayd uu kaa cunno se naftaada ma jeceshahay qofkaas naftiisa ma jecel yahay sidee qofka naftiisa ku jeclaada macna saciida ardayda siisid waay maaragtay tib sidee qofka uu ku jeclaan karaa naftiisa sax waxa ku wanaagsan horta waa inaad garataa masha allah waqtigaaga ka faa'iidaysataa masha allah oo ishaada iyo afkaaga iyo maxay ahayd lugahaagaba meesha qaldan ay u socdaan inaad ka celin karto masha allah oo ku sii daynaynin meel walba iska aadaynin yani wax walba iska dhegaysanaynin wax iska daawanaynin very interesting dhanka hadda ka hadashaa tiri inaadan sii dayn ishaada iyo gacantaada iyo maqalkaaga saddexdaas waa saddexda nafta ayay hogaamiyaan yab markay hogaamiyaan la isku xisaabinaa intaas yes suuratu yaasiin allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay soma in nafta la weydiin doono in gacmaha laga hadashiiyo aw lugihi laga hadashiiyo waayo ani waxaa aaminsanahay safiya ahaan self love inay ay tahay qofka ibni aadanka disciplineka allah ugu talagalay jacaylka qofka uu jecel yahay naftiisa waxay la dhigan tahay inuu dhibaatada iyo dhibka uu dadka kalena ka ilaaliyo naftiisana uu ka ilaaliyo waayo qofka hadduu isaga naftiisa ka ilaalin do you think inuu qof kale ka ilaalin karo ka waran haddii dad waxaa arkaysaa subxaan allah ilaahay soo hanuuniye social media ku jiro dad waxaa arkaysaa aan social media ku jirin laakiin quuta oo yani day in day out ku dhex jira in ay waxyaalo oysan naftoodii aysan u dirsan salaadana tukanaayo wax walbana sameynaya laakiin meesha waxay ka marta dadkaas do you think inay jecdaan ku weydiinaa do you think inay isjeceliin naftooda no jacaylka nafta dad qaar baa u arkaanba inay tahay wax macnaha cusub oo hadda la keenay maxaa nafteeda si u jeclaada nafteeda waatin maxay ahayd diin ahaan waxaa noola sheegay nafta iska yani cadoway kugu tahay iska difaac ma aha صح very good point صح صح marka naftoo la jeclaado ma ahan inaan selfishnimo iyo nafteeda dadka kale yani waa ka jeclahay oo maxay ahayd qof kale ma jecli ma dhehaysid صح صح laakiin waxa waaye naftaada xakameynteedu baa laga hadlaya iyo inaad si qalad ah wax ay sameynayso aan ku daawanin exactly mar walba adiga saxdid exactly so good very good point qofka naftiisa aan jeclayn waa qofka aan naftiisa xakameynin qofka naftiisa jecel waa qofka naftiisa xakameeyay it doesn't mean qof naftiisa jecel inay dad markay u soo hor istaagaan ama ay dilaan rabaan ama inay bahdilaan ama la hadlaan kaliya iska jafjafoo dhasdo ani hebel ma biceen karbo qof naftiisa jeclaa dadku waxay dhahay igama dhibo it doesn't matter jacaylka laga hadlayo nafta qofka inuu akhlaaqdiisa dhisi karo inuu afkiisa dadka ka dhowri karo in dhagihiisa uu ka dhowri karo qaladadka ay maqlaan in indhihiisa uu ka ilaalin karo wax ay arkaan in carabkiisa uu ka ilaalin karo waxa soo gala in naftiisa uu hoggaanka u hayo oo furaha u hayo so haddaba haddaad doonaysid inaad sii kordhisatid programkan waan sii wadi doonaa nala soo xiriir insha allah commentiga noogu reeb wanaag jecel channel oo walaashin macalin saciida inoo wado channelkaas in badan oo faa'iidooyin badan ka soo gelisa waxaan ku dhihi lahaa insha Allah subscribe dadkana kula maaragtay wadaag channelkan together ahaan waxa ugu talagalnay isbedel doon channel oo hadda maanta naga maqan iyo wanaag jecel inta aan isugu imaano waxay tahay in aan ummadeena awareness siino awareness of self love insha Allah the following maaragtay video waxaan kasoo hadli doonaa mo laakiin ani waxaan aaminsanahay as Safiya adigana Saciida ana ila qabti moogi inay sii qoto dheerto gudaha u sii deeply u sii galno waayo as a female male it doesn't matter nin ahaan iyo dumar ahaan it doesn't matter qof walba ani waxaan aaminsanahay haddaad naftaada jeceshahay waxyaalo badan ayaa ka xakameyn kartaa waxyaalo badan ayaa ku riixi kartaa inay gaarto target yeelato hor u socoto thank you exactly so aad u mahadsantiin maxaa ku soo gabagabeyn lahayd inay maaragtay naftooda sida ku jeclaan lahayn again because waayo waxaa kaa soo baxaya hadallo aad u xigmadaysan ilaahay qaad waxa ku siiyo subxaanahu wa tacaala oo diina ku dheehan oo si qofka ibni aadanka labada dhan uga dhisnaado ay muhiim tahay maxaa ku soo gabagabeyn lahayd insha allah nafteeda qofka jecel maxay ahayd waxa lagu ogaadaa meesha ay ka muuqato iyo dadka ay la socoto powerful iyo maxay ahaaday dadka maxay ahaaday yani ay ku xiran tahay masha Allah oo lagu arko
ayaa maxay ahaaday saameynta ay ku yeelato sidoo kale waa lagu ogaadaa marka ka digtoonaada marka insha allahu tacaala nafteeda iyo tiina baa xasuusinayaa meelaha aan ka muuqano iyo dadka aan la soconno iyo saameynta aan ku yeelano ما شاء الله السلام عليكم جزاك الله خير